الدنيا والدين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه waxaan ku sugannahay koonfurta Ceelaf weyn degmada Ceelaf weyn ee gobolka Sanaag deegaanka la yiraahdo Geelyar Dabar nin yaqaan baa yaqaan waxaanuna ka soo kicitinay degmada Garadag oo lagu caleema saarayay xildhibaanadii baarlamaanka ee u soo baxay gobolka Sanaag oo harimo sharafeed casumada iyo walqal loogu sameeyay oo lagu qalay 12 rati oo goolala oo halka xildhibaan walba awr goola laga walqalay halka markii aan ku ducayno Haashimigu halka uu ku gooshay oo xildhibaanadii lagu caleema saaray oo loogu duceeyay ayaanu ka soo kicitinay haddana waxaanu aroos dhaqameeda oo Geelyar Dabara wacyigelinta wacyiga dhulka ku soo arkaynay waxaan halka horta u fidinayaa salaan hambaliyo iyo bogaadin 82 xildhibaan ee ka soo baxay guud ahaan Soomaaliland 6 gobol ee waaweyn iyo 7 gobol yar yar ee soo koraya koob iyo 20 degmo doorashada looga soo codeeyay 82 xildhibaan waxaan u rajaynayaa inay noqdaan kuwa dalkooda iyo diintooda iyo dawladnimada Soomaaliland anfaca una adeega xusbiga talada dalka haya ee uu hoggaanka ka yahay Muuse Biixi Cabdi ee horumarka dalka waxaanu ka soo bixinay saaka Cerigaabo Garadaga 2 saac baanu Garadaga iyo Cerigaabo waxaanu kala socday saacad iyo 8 mil waxa madaarkaana waxa sameeyay xukuumadda talada hadda haysa iyo xukuumaddii Axmed Maxamed Maxamuud Jilaaya ka horeysay ee xusbul xaakim waxaanu leenahay harumar bay dalka dawladdaasi u sameysay baarlamaanka cusubina mid harumar horseeda oo diinta u adeega oo dalka u adeega oo dadkiisii xusuusta oo deegaanadii laga soo doortay ku noqday oo dadka gacalka naafoobay ee duleedada degmooyinka iyo tuulooyinka iyo baadiyaha jooga ee intay soo dunka kaceen codayeen inay kuwa ku noqdaan oo daryeel caafimaad iyo daryeel waxbarasho iyo daryeel dhaqaale u fidiyo ay noqdaan xildhibaanada gobolka Sanaag iyo 82 xildhibaan ee laga soo doortay guud ahaan Soomaaliland baaqcad baan ku siinayaa waxaan ugu ducaynaynaa waxa jira dhaqan dhacay oo wacyiga oo aan barigii hore ee baarlamaankii 13 sano fadhiyay aan jirin muxuu yahay hadeer waxa la shiishayaa oo istaba fadhiya wax la yiraahdo bayna soo galay dhaxal sugayaal horta ilaahay waxaan idinka baryaynaa inaan la idin dhaxlin cimri cibaado ku khatiban Allah idin siiyo oo adalka iyo diinta iyo dadka ugu adeegtaan waayo wax ishana ilaahay idinka baariyo kuwii dhacay baa iska soo fadhiya kuwa dhacayna waxaanu leenahay guuleystay wax sana la haydin siiyo kuwa caalamka gala oo ka soo adeega oo ilaahay wadooyin caalamka u furo gaaliya islaamka gargaara inaan noqotaan eedin kuwa dhaxal ka sugin oo may dhaxlin kuwaana haragooda Allah ku adkay odayadii dhaqanka ee aanu geedka iyo gobka iyo deegaanka ku soo gaadhnay ee gadcasta ay xeerbeetidii Soomaalida waxay oran jireen ilaahu haragooda naga adkay xoolo markay baxaan ama rag xanuun ku dhaco haragooda ilaahu ku adkay 82 xildhibaan hadda soo baxay qaasi intaas ku soo dhaafaya inta kale aroos dhaqameedka iyo wacyiga aanu ku soo arkaynay dhulka baadiyaha madaxweynaha Soomaaliland iyo xukuumaddiisa waxaan ugu baaqayaa in dadkii laga soo xireeyay dhulka baadiyaha oo ay xooli habaabeen oo dabayl raaceen oo cidla dhiceen oo ay dadkii dumarka ahaa iyo ciyaalkii iyo dadkii xoolaha dhaqi jiray geela iyo ariga iyo idaha ay farmeel ku sugayaan oo hay'adda WFP haruur u qortay cas oo garawcasa waxaanu leenahay dhulka marka abaaraha ba'ani jiraan ee ay abaaraha ba'ani dhacaan ee kala mareebada ay xukuumadda iyo hay'adaha dawliga hada safalku ha gurmaday aan se dadku ha ku noqdeen oo ha ka guureen dhulka magaalooyinka oo ha ku noqdeen dhulkii baadiya ahaa ee Bancade iyo Karamaan iyo Doodi iyo Saraar ee xooluhu ku noolaay maadaama laf dhabarka Soomaalida ama dawladda Soomaaliland iyo dadka Soomaaliland laf dhabarkooda 7% xoolaha nool aynu ku tiirsanay dawladuna ay cashuurta ka hesho badaha waxaynu ka dhoofinay xoolaayeen xoolihii waa cidla madaxweyne iyo golaha baarlamaanka ee 82 waxaanu ka codsanaynaa war horta dadku maxay idin kaga dambeynayaan hadii laf dhabarkii 7% uu meeshaba ka baxo dadkii meel wadooyin ah oo wadada laabiga bay aqaladii 1008 oo aqaladii baadiyaha degi jiray ee Bancade iyo Karamaan dhooyo iyo Faro iyo Saraar degi jiray iyo Doodi ee xoolaha geelaya idaha gaacin jiray meesha doogale loo rari jiray bahalka laga ilaalin jiray ee laga ilaalin jiray tamootida ee baxsiga laga ilaalin jiray ayaa halka la soo dhigay laabiga labadii saqar oo far bay sugaya oo horta farta laga bajoojiyo waxaan uga ducaynaynaa ilaahay idahoodii iyo geeloodii iyo riyahoodii ku gaaciyo oo ay dhergaan dumarkuna ay intay baadiya aqaladooda rartaan baadiyi u guuraan xooli badbaadiyaan xafidaan taasina waa inta kale gobolka Sanaag oo ay doorashadu si nabada uga dhacday ilaa Sanaag bari oo lagu soo hirdamay oo si xaq iyo xalaal loo dhacay oo ninkii dhacayna si xalaal u dhacay kii soo baxayna si xalaal u soo baxay oo 12 xildhibaan oo qaaliya oo digrii sita ashahadada masterka digriiga biologiga sita ay ka soo baxeen oo rag 14 sano PhD sitaana ay ka soo baxeen oo ugu horeeyo Samafale Cumar Jaamac Faarax Axmed
محمد صالح ديرية إيه حلبان ميعاد سيدنا أنا باعية أنا قم ما دام أنا هي أمير كي ريش إسحاق سيدات المشي إسحاق جود أنا أمير كبنو هاشم إلى مراكو إلى أردن ودي أنا قلنا ندتك أود حيا بار سيدات لبيه سيداتك حلبان صباحي والله فرح سنة وأودعني هرق الله قواتك يقول دلك يدين توادي قال كوا دعية يقولها دجان كيوكوا برلمان كدعينا والله ولا مرجيسنا الله صبر باريو شقاسي أنت سوا أنت كلا عيد ماذا بانو أدير يا قلب كسيدة الضفاع دلك السومالي الآن سيدا قارك أوتوبر كمان دوست يسوق شري من التريقة الدفاع أراريوجا يكون سيدا قارك أوتوبر يكون بده أمانك الصغي كوانا وحنا لها برباري سومالي لما بودو عيني ندعوهم باليد بقعد جبدي وحكوا سو جبينا يا أدور كابدر أنا أساس من كسر صبينين سومريي أجاسمها جود ورفافنتا مستر محمود سراف سعيد هذا نعانو ربنا الله بقى طبعا كحلبان إنها الشغادي سيدر درجلية سيدا ورباهين توجسوا جود بنا يا قبل حق النبات جلية ده جوبها أكثر ميري جوبها سحب سمسعاي دورشة وجسعود أي رصق عالية أهيد ورياشة كلا دوان صحافة ضمضة حبنان يتدولي أنا ورفديان كا وررك سوق جود بنا سيدا النبات جلية ده سوق جود بنا أنا أيانو همبليو يبقوا قاعدين أنا أفكر دقن كوه هذا السومالي لان أفكر إن حكومة السومالي لان ما دام أنا وسارة داري ما جودها كترسانو بريم كقاضم أما وحنا مشاهرة كل شيء أنا قلنا ده أضماتته أمير كان أمير كجرنا بروشنا أمير لما نبل شدن دكان هذا أنا مرة أنا الشيء قبل كسنة أنا قلت سومالي اللامب أضيوا يضير تيار صفر فريدة وحباب برنا قالوا بلا الله بري وحنا هل كان أقولني من لبا أردي قاعد يسبقون يكون تنان مدخل فرب حريق إنه قالوا بلا برا وحق قرآن كان الله بري وحنا حكومة السومالي لان يا برلمان كعصبوا باقينا إن دول كبادية تولوين كدجان ده فوق وحبرش اللي وعلماء أودي اللي جاي ده القرآن كبرت يعني ما فرطة برا سير يركو هذا وحقوق على مديان دور الصدى الضبي هو صبح دنيا يجك والسلام عليكم ورحمة الله.